waa u jeedaan halkan waxaan ku soo booqannay anigii wasiiraddaba dhalinyaro isxilqaamay oo ka yimid gobolka banaadir iyo shaqaalihii gobolka banaadir ee nadaafadda halkan u yimid shilkii shalay dhacay qaraxii inay maanta nadaafadda ka qayb qaataan oo goobtan lagu soo celiyay sidii ahaan jirtay kadibna aan u gudageli doono dhismaheedii kow waxayna u dhiirigelinaysaa in dhallinyaradii iyo weliba bahda saxaafadda dhammaantoodba diyaar u yihiin dalkan inay dib u dhistaan qaraxii shalay dhacay kooxaha argaxisadana inaysan dib noo celinayn waxna noo dhimaynin horeyna inaan u soconno aan diyaar u nahay taasna annaga waxay nagu sii dhiirigelinaysaa maamulka iyo dowladda federaalkaba in aan hore u sii wadno horumarka la waday noo caddaynayso in ummadda soomaaliyeed maanta meel kastay joogto ay diyaar u tahay barnaamijka isxilqaan in dhallinyaro issoo xilqaamaan oo halkan u yimaadaan inay nadaafadda ka qayb qaataan waxaan idin leenahay ajar allah idinka siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin abaalkiinana ma gudi karno waxaanna tusteen in soomaaliya weli taagan tahay